السلام عليكم ومبارك محمود سليبان iyo channelkeeni Tayoton Media waxaynu halkii ka sii anbaqaadi doonaa taariikhdii taxanaha inoo ahayd ee dawladdii Cusmaaniyiinta qaybtii horena waxaynu ku soo dhamaynay taariikhdii Sultaan Axmedkii saddexaad haddaba maanta waxaynu ka sii anbaqaadi doonaa taariikhdii Sultaan Maxamuudkii koobaad haddaba daawadayaal intaynan muuqaalkeena gudagelin fadlan haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono annagana ay noogu noqoto dhiirigelin haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta Sultaan Maxamuudkii koobaad waa sultaankii 23aad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta kaasoo xukumayay intii u dhaxaysay sanadihii 1730 ilaa 1754 haddaba intaa uu Sultaan Maxamuud xukunka hayay boqortooyadii Cusmaaniyiintu waxay dagaalo waaweyn la gashay saddex dal oo kala ahaa Iiraan, Ruushka iyo boqortooyadii Austria haddaba dhinaca noloshii hore ee Sultaan Maxamuud wuxuu ku dhashay magaalada Adarna labadii bishii August ee sanadkii 1696 miilaadiga aabihii waa Sultaan Mustafihii labaad hooyadiisna waxaa la odhan jiray Sultaanad Saliixa haddaba markaa laga hadlayo shakhsiyadiisii Sultaan Maxamuud wuxuu ahaa mid isku darsaday caqli, cibaado, taxaddar iyo dhaqan wanaagsan yaraantiisii wuxuu wax ka bartay aqoon-yahanadii ugu waaweynaa ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta sida Sheekh Islaamkii Bayzullah Eras Rumali dhinaca kale Sultaan Maxamuud wuxuu lahaa hibo suugaaneed iyo mid farshaxanimo sidaas darteed wuxuu curin jiray gabayo wuxuuna samayn jiray farshaxano kala duwan haddaba Sultaan Maxamuud markii aabihii Sultaan Mustafihii labaad laga xayuubiyey carshiga boqortooyadii Cusmaaniyiinta isla markaana la caleemo saaray Sultaan Axmedkii saddexaad sanadkii 1703 miilaadiga waqtigaas Sultaan Maxamuud waxaa la keenay magaalada Istanbul waxaana lagu xidhay qasriga Tobaki Palace oo ah meeshii loogu talagalay in lagu hayo amiirada boqortooyadii Cusmaaniyiinta si looga hortago inay inqilaab sameeyaan wuxuuna halkaas ku xidhnaa 27 sano ilaa uu la wareegay carshiga boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1730 miilaadiga dhinaca la wareegistii xukunka boqortooyadii Cusmaaniyiinta Sultaan Maxamuud wuxuu xukunka la wareegay kadib markii ciidamada Inkishaariya ay kacdoon kaga tuureen xukunka Sultaan Axmedkii saddexaad 28 Sebtembar ee sanadkii 1730 miilaadiga Sultaan Maxamuud waxaa lagu caleemo saaray masaajidka Abaa Ayuub al-Ansaari waxaana lagu guddoonsiiyey halkaa sidii caadada ahaydba seeftii Cusmaan bin Ardaqrool oo isagu ahaa ninkii aasaasay boqortooyadii Cusmaaniyiinta haddaba Sultaan Maxamuud waqtigaa uu xukunka la wareegay wuxuu ahaa sawir uu watay ninkii kacdoonka hogaaminayay ee lagu magacaabi jiray Bedrona Khaliil kaasoo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadii Inkishaariya asal ahaana ka soo jeeday dalka Albaaniya xukunka dalkuna wuxuu ku jiray waqtigaas gacanta Bedrona Khaliil isaga ayaana si toos ah u maamulayay dalka haddaba Bedrona Khaliil markii uu xukunka ku wareejiyay Sultaan Maxamuud wuxuu isu arkayay inuu yahay ninka sultaanka magacaabay sidaas darteed wuxuu magacaabayay cidda uu isagu doono sidoo kalena cidda uu doono ayuu xilka ka qaadayay isagoo waliba isla weyni ay ku jirto haddaba waqtigii uu kacdoonka waday Bedrona Khaliil waxaa jiray nin fangareynayay oo asal ahaan Greega kaasoo lagu magacaabi jiray Yanaki haddaba Bedrona Khaliil si uu ugu abaalgudo ninkii kacdoonkiisa fangareynayay wuxuu u magacaabay imaaradii Maldivia dhinaca kale kooxdii uu hogaaminayay Bedrona Khaliil waxay sababtay amni xumada ka jirtay magaalada Istanbul sidoo kalena waxay xadgudubyo u geysanayeen hantida dadka iyo sharaftoodaba ficilada xunxun ee ay ku kacayaan iyo doqonnimadiisuna waxay kicisay oo ka horyimi madaxdii kale ee dawladda iyo sidoo kale saraakiishii kale ee ciidamada Inkishaariya ee asal ahaan iyagu aan ka soo jeedin dalka Albaaniya haddana Bedrona Khaliil intaa kuma ekaanine sultaanka ayuu wuxuu ku amray inuu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah Ruushka laakiin sultaanku arrinka aad ayuu uga cadhooday wuxuuna amray in la dilo Bedrona Khaliil ugu dambeyn waxaa la dilay Bedrona Khaliil horaantii sanadkii 1731 miilaadiga sidoo kalena Sultaan Maxamuud wuxuu amray in la dilo ninkii isagu fangareynayay kacdoonka ee lagu magacaabi jiray Yanaki iyo dhammaanba ciidamadii hawsha la waday oo asal ahaan ka soo jeeday Albaaniya kuwaasoo lagu qiyaasay ilaa 7,000 oo askari sidaasna waxaa ku dhammaaday oo lagu soo afjaray sanadihii fawdada iyo kacdoonka dhinaca dagaalkii Safawiyiinta iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta kadib markii uu sultaanku dhameeyay arrintii Bedrona Khaliil
arrimihii dowladduna ay degeen waxay bilaabeen inay wax ka qabtaan qalalaasihii ka taagnaa xuduudaha bari ee ay la wadaagaan dowladdii safawiyiinta ee Iran. kadib markii tahambaaskii labaad oo ahaa wiil uu dhalay Shaah Xuseen Az-Zafawi ay u suurta gashay sannadkii 1729 inuu dib u soo ceshado xukunkii dalka Iran isagoo gacan ka helaya wakhtigaa hogaamiyihii lagu magacaabi jiray Nader Shah kadib markii ay ka adkaadeen ciidamadii boqortooyadii Hotaag ee dalka Afghanistan kuwaasoo aabihii Shaah Xuseen ka tuuray xukunka sidoo kalena qabsaday dhulkii dowladdii Safawiyiinta. haddaba Shaah tahambaaskii labaad markii uu ku guulaystay inuu xukunkii dowladdii Safawiyiinta dib u soo ceshado waataynu soo aragno qaybo ka mid a dhulkii ay dowladdii Cusmaaniyiintu hore uga qabsatay ayuu sannadkii 1730 miilaadiga dib u qabsaday tahambaaskii labaad. haddaba markii la gaadhay sannadkii 1731 Shaah tahambaaskii labaad wuxuu dagaal ku soo qaaday Cusmaaniyiinta ujeedkiisuna wuxuu ahaa inuu Armeniya, Georgiya iyo Tajikistan dib uga soo ceshado Cusmaaniyiinta. sidaas darteed ciidankii Shaah tahambaaskii labaad waxay guul ka gaadheen ciidankii Cusmaaniyiinta meel u dhow magaalada Yerevan kadibna waxay go'doomiyeen magaalada Yerevan. dhinaca kale Suldaan Maxamuud wuxuu soo diray ciidan uu hogaaminayo ninkii lagu magacaabi jiray Axmed Baasha oo asal ahaan isagu ka soo jeeday Faransiiska oo markuu soo islaamay loo bixiyey magacan Axmed Baasha. haddaba Axmed Baasha isla markiiba wuxuu ku guulaystay inuu jebiyo go'doomintii ay ku hayeen magaalada Yerevan kadib markii uu magaalada Tabriis qabsaday taasoo Shaah tahambaaskii labaad ku qasabtay inuu go'doominta ka qaado magaalada Yerevan kadibna soo aado dhinaca magaalada Tabriis. kadibna Shaah tahambaas waxa soo gaadhay war sheegaya in Axmed Baasha uu qabsaday magaalooyinka Karmanshah iyo Hamdaan. haddaba marka xaalku halkaa marayo Shaah tahambaas xaalkii ayaa ku xumaaday wuxuuna ka codsaday Cusmaaniyiinta heshiis. sidaas darteed sannadkii 1732 ayuu heshiis la galay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. haddaba wakhtigaas wuxuu kala heshiiyey Cusmaaniyiintu inay qaataan dhammaan dhulkii ay ka qabsadeen Safawiyiinta marka laga reebo magaalooyinka Tabriis, Hamadaan iyo Loristaan. haddaba heshiiskaas waxa diiday taliyihii ciidanka Safawiyiinta ee lagu magacaabi jiray Nader Shah wuxuuna xilkii ka tuuray tahambaaskii labaad sannadkii 1732 miilaadiga kadibna wuxuu boqor ka dhigay wiilkiisii yaraa ee lagu magacaabi jiray Cabbaas isaguna wuxuu isu magacaabay inuu noqdo ilaaliyaha iyo ku-xigeenka boqorka. haddaba Nader Shah wuxuu go'aansaday inuu sii wado dagaalka si uu dib ugaga soo ceshado Cusmaaniyiinta magaalooyinka Armeniya iyo Georgiya. haddaba si uu soo ceshado wuxuu qorsheeyey inuu Baqdaad ka qabsado Cusmaaniyiinta kadibna uu kaga beddesho Baqdaad dhulka laga haysto ee Armeniya iyo Georgiya. haddaba Nader Shah wuxuu duulaan ku soo qaaday magaalada Baqdaad sannadkii 1733 miilaadiga laakiin ciidamadiisii waxaa jebiyey oo ka adkaaday ciidamadii Cusmaaniyiinta ee wakhtigaas uu hogaaminayey Sadrulacdamkii lagu magacaabi jiray Cismaan Baasha Tobaal. kadibna Nader Shah wuxuu go'aansaday inuu dib isu soo abaabulo wuxuuna aaday dhanka magaalada Mowsil. haddaba Nader Shah isagoo uu ka faa'iidaysanaya Cusmaaniyiinta oo wakhtigaa ku mashquulsanaa dagaalkii ay kula jireen Ruushka ayuu mar labaad soo weeraray magaalada Baqdaad kadibna wuxuu wajahay ciidamadii Cusmaaniyiinta oo uu hogaaminayey ninkii lagu magacaabi jiray Cismaan Baasha Tobaal. dagaalkaasna Nader Shah wuxuu guul weyn ka gaadhay xoogagii Cusmaaniyiinta ee Baqdaad sidoo kalena halkaas ayuu ku dilay Sadrulacdamkii Cismaan Baasha Tobaal. kadibna wuxuu go'doomiyey Baqdaad sannadkii 1735 miilaadiga. haddaba marka arrin halkaa marayso Sadrulacdamkii cusbaa ee Ismaaciil Baasha ayaa wadaxaajood la galay dowladdii Safawiyiinta ee uu hogaaminayay Nader Shah. wadaxaajoodkiina wuxuu ku dhammaaday heshiiskii magaalada Istanbul ee 22 bishii Oktoobar sannadkii 1736 miilaadiga. heshiiskaas oo dhigayay in boqortooyadii Cusmaaniyiintu u aqoonsato Nader Shah inuu yahay boqorka Iran iyo in loo soo celiyo dhulalkii ay Cusmaaniyiintu ka qabsadeen Safawiyiinta iyo sidoo kale in xuduudaha labada dowladood ay noqdaan sidii lagu go'aamiyey heshiiskii sannadkii 1639 miilaadiga wakhtigii Suldaan Muraadkii afraad. haddaba heshiiskaas Nader Shah wuxuu mar kale dib u helay magaalooyinka Armeniya iyo Georgiya. dowladda Cusmaaniyiintuna waxay dib u heshay magaalada Baqdaad. dhinaca dagaalkii Ruushka iyo Cusmaaniyiinta dagaal ayaa ka dhex qarxay Ruushka iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta sannadkii 1736 miilaadiga. sababta dagaalkaasina waxay ahayd sheegashadii Ruushka ee ahayd
in raggii Tataarka ahaa ee ku sii jeeday Georgia si ay uga mid noqdaan ciidamadii Cusmaaniyiinta ee la dagaalamayay Safawiyiinta ay weerareen qaar ka mid ah xulafadooda. laakiin sababta dhabta ahi waxay ahayd markii baarlamaanka Poland ay boqor u doorteen amiirkii lagu magacaabi jiray Stanislaskii koowaad. haddaba wakhtigaas Poland waxaa ka jiray qalalaaso gudaha ah. sababta qalalaasahaasina waxaa ka mid ahaa kadib markii boqor Charleskii 12aad ee Sweden uu duulaan ku soo qaaday dalka Poland sanadkii 1702 miilaadiga, wuxuuna ku qasbay baarlamaankii dalka Poland inay xukunka ka tuuraan boqorkoodii Augustihii 2 ayna ku bedelaan amiir Stanislaskii koowaad. laakiin Ruushka ayaa ka hor yimid arrintan uu watay boqorka Sweden, waxaana dhex maray dagaalkaasna Ruushku wuxuu kaga adkaaday boqorkii Sweden dagaalkii Baltova ee sanadkii 1709 miilaadiga. sidaas darteed boqorkii Augustihii 2 wuxuu dib ugu soo noqday carshigii Poland. Stanislaskii koowaadna wuxuu u baxsaday oo aaday dhanka Faransiiska. haddaba markii la gaadhay sanadkii 1725 amiir Stanislaskii koowaad wuxuu guursaday gabadh uu dhalay boqorkii Faransiiska ee lagu magacaabi jiray Louiskii 15aad. haddaba markii la gaadhay sanadkii 1733 ayuu boqorkii Poland ee Augustihii 2 dhintay. kadibna baarlamaankii Poland ayaa si aqlabiyad leh waxay u doorteen amiir Stanislaskii koowaad inuu noqdo boqorkooda. haddaba doorashada amiir Stanislaskii koowaad waxay faa'iido ugu jirtay Faransiiska maadaama uu xulafo la ahaa Faransiiska sidoo kalena uu qabay gabadh uu dhalay boqorka Faransiisku. haddaba arrintan waxaa ka hor yimid oo diiday Ruushka iyo Austria sababtoo ah Austria ma rabto Poland inay ku biirto dalka ay xafiltamaan ee Faransiiska. Ruushkuna wuxuu damacsanaa sida uu qorsheynayay qaysarkii Ruushka ee Peter the Great in Poland gudaheeda laga abuuro qalalaaso joogto ah isla markaana la daciifiyo kadibna uu wada qabsado, taasoo u sahlaysa inay qabsato Sweden kadibna boqortooyadii Cusmaaniyiinta. haddaba Ruushka iyo Austria kama aysan labalabayn inay ku dhawaaqaan dagaal ka dhana Poland, maxaa yeelay waxay ka baqayeen in la dhiso isbahaysi ka kooban Swedish, Faransiis iyo Polish. mana qaadan waqti dheer in Faransiisku isna ku dhawaaqo dagaal ka dhana Austria oo ay ku difaacayeen xaqa Poland ay u leedahay inay doorato boqorkooda si xor iyo xalaal ah. haddaba waqtigaas dowladdii Faransiisku waxay dadaal xoog leh u gashay inay xulafo la noqoto boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo dagaal kula jirtay Austria iyo Ruushka. waxa arrintan dhexdhexaadinayay sarkaal ka tirsanaa Cusmaaniyiinta asal ahaana ka soo jeeday Faransiiska, kaasoo qaatay diinta Islaamka loona yaqaanay Axmed Baasha Qamarji, wuxuuna waqtigaas ahaa abaanduulaha madaafiicda Cusmaaniyiinta. waqtigaasna Faransiisku wuxuu u caddeeyay Cusmaaniyiinta in dantooda ku jirto madaxbannaanida Poland si aan Ruushku u gaadhin himilooyinkiisa. haddaba Suldaan Maxamuud iyo wasiiradiisii toona kamay soo jawaabin dalabkii Faransiiska. natiijaduna waxay noqotay in Ruushku qabsado Poland kadibna wuxuu xukunka ka tuuray boqor Stanislaskii koowaad, wuxuuna ku bedelay boqor Augustihii 3 oo ah wiilkii Augustihii 2. waqtigaasna Faransiiska waxaa lagu qasbay inuu aqoonsado kadib heshiiskii Vienna ee sanadkii 1738. aanu laabano dhinaca dowladdii Cusmaaniyiinta iyo Ruushka. 20kii bishii May ee sanadkii 1736 Raashia waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxayna ciidamadii Ruushka ee uu hogaaminayay Marshal Christoph soo weerareen qalcadihii Cusmaaniyiinta ee Crimea, waxayna go'doomiyeen magaalada Bakhchisaraa, laakiin waxay dib ugu laabteen dhulkii Ukraine kadib markii ay iska caabin weyn kala kulmeen ciidamadii Cusmaaniyiinta ee halkaa ku sugnaa. haddaba bil kadib ciidamadii dhulka iyo badda ee Ruushku waxay weerar labaad ku soo qaadeen dekedda Azov. ciidamadii Ruushkuna waxay gaadheen guulo dhowr ah oo ay kaga adkaadeen ciidankii Cusmaaniyiinta ee Crimea, laakiin aakhirkii waxay ku qasbanaadeen inay dib ugu laabtaan Ukraine. dagaalkaasna Ruushku wuxuu ku waayay ilaa 30,000 oo askari oo badankooduna waxay u dhinteen gaajo iyo cudurro. dhinaca dagaalkii Austria, sanadkii 1737 Austria waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxayna weerar ku soo qaadeen waddamada Bosnia, Serbiya iyo Wallachia. laakiin Maxamed Baasha oo jagada sadrulacdamka qabtay sanadkaas ayaa filayay duulaanka Austria oo diyaarsaday ciidankiisa iyo qalabkiisaba. sidaas darteed weeraradii ay soo qaaday Austria waxay kala kulantay guuldarrooyin,
dagaaladaasna waxa ugu caansanaa dagaalkii Bangluka ee ka dhacay Bosnia, halkaas oo ciidamadii Cusmaaniyiinta ee uu hogaaminayay Sadrulacdamka Cali Baasha ay kaga adkaadeen ciidamadii Austria ee uu hogaaminayay Amiir Joseph. waxaa kale oo dagaaladaas ka mid ahaa dagaalkii ugu dambeeyey ee Goroka, kaasoo dhacay sannadkii 1739. dagaalkaasna Austria waxay kala kulantay ciidamadii Cusmaaniyiinta guuldarro aad u xun. kadib guushaas Cusmaaniyiintu waxay dib u qabsadeen magaalada Belgrade. haddaba marka xaalalka marayo Sadrulacdamkii Cali Baasha oo isagu madax ka ahaa ciidamadii Cusmaaniyiinta, wuxuu fariin uu ugu sheegayo guusha ay gaadheen u diray Suldaan Maxamuud, wuxuuna wakhtigaas suldaanka ka codsaday inuu oggolaado inuu weeraro Hungary, laakiin Suldaan Maxamuud taxadarkiisa awgeed wuu diiday in la weeraro Hungary. dhinaca kale, guuldarrooyinkan ayaa saamayn xun ku yeeshay Austria. waxaa xilkii laga qaaday jenaraalkii hogaaminayay ciidamadii Austria oo la odhan jiray Field Marshal Wallace. Austria waxay dalbatay heshiis, sidaas darteed Faransiiska ayaa dhexdhexaadiyey Austria iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta. waxaana bilaabmay wadahadal, waxaana 21kii bishii August ee sannadkii 1739 miilaadiga heshiis ka dhacay magaalada Belgrade ayaa la soo gabagabeeyey. heshiiskaasoo loo yaqaanay heshiiskii Belgrade. heshiiskaasna Austria waxay ka tanaasushay dhulkii ay boqortooyadii Cusmaaniyiinta kala wareegtay wixii ka dambeeyey heshiiskii Baswortis ee sannadkii 1718 miilaadiga. Austriana wakhtigaas waxay dib ugu celisay Cusmaaniyiinta dhammaan dhulkii ay qabsatay, waxaana ka mid ahaa magaalada Belgrade iyo qaybo ka tirsan Bosnia iyo Serbiya, dhulkaasoo ay haysatay 22 sannadood. haddaba bil kadib heshiiskan, boqorkii Austria ee Charleskii 6aad ayaa geeriyooday, kadibna gabadhiisii Maria Theresa ayaa xukunka la wareegtay. sidaas darteed Faransiisku wuxuu arkay inuu fursad u helay cadowgeedii soo jireenka ahaa ee Austria. sidaas darteed wuxuu isbahaysi la samaystay Isbaanishka, Bavaria, Saksana iyo Prussia, kuwaasoo ka soo horjeeday Austria, waxayna arrintaasi keentay inay abuuraan khilaaf ka dhashay dhaxalka xukunka Austria. waxaana halkaas ka bilowday dagaal 8 sano socday oo loo yaqaanay dagaalkii dhaxalka ee Austria. haddaba haddaynu ku soo noqno dhinaca dowladdii Cusmaaniyiinta iyo Suldaan Maxamuud, gaar ahaan arrimaha gudaha, Suldaan Maxamuud wuxuu wax ka bartay kacdoonnadii hore ee soo maray salaadiintii isaga ka horraysay, oo inta badan ay ku lug lahaayeen cidda haysa hadba jagada Sadrulacdamka. jagadaas oo ahayd jagada ugu sarraysa ee laga qabto dowladdii Cusmaaniyiinta. sidaas darteed joogto ayuu u beddeli jiray Sadrulacdamka. muddadii 25 sano ahayd ee xukunka hayeyna wuxuu sameeyey 15 isbeddel oo booskana. haddaba isbeddeladii kale uu ku sameeyey dhinaca milatariga, Suldaan Maxamuud wuxuu rabay inuu cusboonaysiiyo ciidamadii Cusmaaniyiinta, wuxuuna ka keenay dalka Faransiiska sarkaal lagu magacaabi jiray Claude Alexander, kaasoo qaatay diinta Islaamka loona bixiyey Axmed Baasha. sarkaalkanina wuxuu doonayay inuu wax ka beddelo nidaamka adeega milatariga, wuxuuna soo jeediyey in loo qaybiyo ciidanka Inkishaariya kooxo yaryar oo ay hogaaminayeen saraakiil dhallinyaro ah. sidoo kale wuxuu doonayay in la sameeyo warshado milatari. sidaas darteed wuxuu aasaasay warshado lagu sameeyo madhaafiicda, qoryaha iyo miinooyinka, wuxuuna furay iskuullo injineernimada milatariga lagu baranayo. dhinaca waxqabadkii dhismaha ee Suldaan Maxamuud, Suldaan Maxamuudkii koowaad sannadkii 1740 wuxuu kuliyad ka dhisay masaajidka Aya Sofiya agtiisa, waxaana ka mid ahaa kuliyadda maktabad, iskuul carruurta iyo guri loogu talagalay ardayda. dhinaca geeridii Suldaan Maxamuudkii koowaad, haddaba Suldaan Maxamuud 25 sano oo uu xukunka hayay, wuxuu geeriyooday 13kii bishii Disembar ee sannadkii 1754 miilaadiga isagoo wakhtigaa 60 jir ah, kadib xanuun hayay muddo 2 sano ah. waxaana lagu aasay magaalada Istanbul, waxaana xukunkii ka dhaxlay walaalkii Cusmaankii 3aad oo wakhtigaa isagu ahaa 50 jir. taariikhdiisana gadaal ayaynu ku arki doonaa. maantana halkaa inoogu joogto. wasalaamu calaykum.